taliya ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeyo guuto Cismaan Maxamed Cabdullaahi Kaniif oo xalay safar ku yimid magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ayaa kormeer ku tagay saldhigga qaybta booliska gobolka Mudug ee degmada Gaalkacyo halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliyeed qaybtooda Galmudug isagoo salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka booliska ee halkaas ku sugnaa taliya ku-xigeenka booliska Soomaaliya ayaa kormeerkiisa waxa ku helinayay taliyaha booliska Galmudug Cabdicasiis Yuusuf Aadan Dagabadan ku-xigeenkiisa Cabdi Jaamac Cabdulla Xabeeb maamulka gobolka kan degmada Gaalkacyo waxaana kormeerkaani uu salka ku hayay koorgalida qaabka ay u shaqeeyaan ciidamada booliska xiriirka kala dhaxeeya bulshada iyo caqabadaha haysta booliska ka howlgala gobolka Mudug taliya ku-xigeenka qaybta booliska gobolka Mudug Maxamuud Cilmi Gulaafe ayaa warbixin ka siiyay taliyaha shaqada booliska ay u hayaan bulshada gobolka Mudug isagoo xusay inay jiraan maxaabiis badan oo ku jira saldhigga degmada Gaalkacyo kuwaas oo ku eedeysan dambiye kala duwan duqa degmada Gaalkacyo Xirsi Yuusuf Bare ayaa sheegay in ciidamada booliska ay shaqo muhiim ah ka hayaan degmada Gaalkacyo hayeeshee uu soo jeedin lahaa in isbedel lagu sameeyo ciidamada si sare loogu qaado firfircoonida booliska maadaama ay muddo badan ka howlgalayeen gobolka Mudug isla markaana bulshada ay ku dhaxmilmeen waxay sheegay markii uu Soomaaliyeedkii qaar aan shaqeyn jirin hadda inay madax yihiin oo aadan haystaan ragga markii saas loo kala bedelo markii macnu yeelanaya haddii halkaan 15 sano fadhiyaan dadkii shacabkii bay ka mid noqdeen dadkii shacabkii iyo ayaga isku mid noqdeen dadkii ma ixtiraamayo dadkii ka baqi maayo waa runtood ciidan waxa jooga aan amar qaadan oo tiknik saaran oo caqabad ah marka arintaas anigu waxaan qabaa inay hoos in looga wada hadlo oo aad iyo aad baan ragga qaar ugu mahad celinayaa oo har iyo habeen maaragtay taagnaa oo shaqeynayo oo aan garanayo saaka dil ilaahdo hal dalacsiyo rag baan ma soo qaban lahaa wixii kale oo qaldanna in la saxo waa waajib saaran taliyaasha iyo cid kasto mas'uula gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye Isxal ayaa taliya ku-xigeenka koobaad ee booliska Soomaaliyeed ka dalbaday in la ballaariyo saldhigyada boolisku ay ka howlgalaan ee gobolka Mudug isla markaana la gaarsiiyo deegaanada oo dhan waxaan rabnaa in taliyahan ka codsanaynaa maadaama maanta fursad gobolku u helay inuu yimaado wixii hore uu maayirku ku noqon maayo laakiin waxaan ku sii darayaa magaalooyin badan oo furun ku aadan oo aan lahayn ciidamo boolis ah jira waxaan codsanaynaa marka meeshaas in la geeyo Qaydara Bajeela Afbarwaaqo iyo Laanwaaley iyo Ceelguule iyo meelahaas inaan codsigayga kugu daro oo ciidan la geeyo aan ka codsanaynaa waxaan kala codsanayaa in kastoo waraaqa ay ku qoran yihiin wararka badan oo ciidanka oo ay soo diyaariyeen taliyaha qaybta haddana waxaan ku sii xoojinayaa meeshan waxay u baahan tahay qalabayn badan waxay u baahan tahay tayo u baahan tahay waxaan tayo lahayn ma shaqeeyaan ilaa waxaan kala codsanaynaa asluubta iyo boolisku waa isku mid meeshan malaha gaar shir ma laha qof kale dabcan in la xiro maxkamadda ciidankuna ma joogto gaar shirina ma joogo maxkamadda ciidankuna ma joogto oo ciidanka xukumi lahayd oo qofka ciidanka hadduu wax dilo xukumi lahayd gaar shirina ma laha inkastoo hadda liido waa la sameynaa laakiin in la dedejiyo oo wax badan laga bedelo meeshan bay u baahan tahay taliya maadaama cusub tahay wax badanna aadan ka ogeyn gobolkan shaqada hadda haysi waxaan codsanaynaa qaabka hadda aan ku dhisanahay in wax format laga bedelo ciidamo badan waxa jira laba saldhig baa jirta midna hadda dhamaan rabaan filayaa asbuucan gudihiisaan la wareegi doonaa kaas waa la qalbanaya laakiin kuwan balan qalbayn loo helo ciidankan sidii maayirku sheegay bal ninkii darajada ninkii shaqeeyana iyo ka shaqeyn in la kala saaro wada xakamtum bayna naas aan taxkum bil adl in cadaalad loo sameeyo taasna waa codsiga ku jirta taliya ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeyo guuto Cismaan Maxamed Cabdullaahi Kaniif oo la hadlay ciidamada booliska ayaa xusay in safarkiisan uu la xiriiro sidii uu ogaan lahaa shaqada booliska iyo sida ay bulshada ula falgalaan wuxuuna intaasi raaciyay in uu la kulmi doono maamulka gobolka kan degmada Gaalkacyo iyo bulshada si uu xog buuxda uga helo shaqada ciidamada booliska ee gobolkan Mudug aniga imaashahaygu wuxuu ku saabsan yahay ciidanka Galmudug inaan ogaano
wixii dawladda Soomaaliya u xilsaaratay oo biliiska u xilsaartay shaqadii shacabka loogu talagalay adeegii la rabay inay qabtaan sidii loogu talagalay inay u qabanayaan iyo inaysan u qabanayn waxaan ugu talagalnay inaan si dhab ah u ogaano si dhabana u kala saarno qofka aan shaqaynayn ugu talagalay inuu shaqayn shaqadii iyo adeegii aan loo dirtay aan qabanayn de asaga isii banaanka isii dhig qofkaas ciidanka ma kamid noqon doono qofkii shaqaynahayona bareemiyadiisa asagana u imaanaysa la isdur saarnaamay hadii ilaahay idmo waana ciidanka biliiska galmudug iyo ciidanka biliiska dhan baa ku shaqeeya sidaas taasaan maaragtay baan aniga u imid ciidanka biliisku waa ka duwan yahay ciidamada kala shaqadooda waa ciidan loogu talagalay inuu bulshada u adeego sugo muwaadinka naftiisa iyo maalkiisa hantidiisa inuu maaragtay ilaaliyo waa qof dad loogu talagalay inay dhex galaan dadka shacabka ah si ay raali u yihiin u shaqeeyaan soo dhaweeyaan u kala garsooraan si ay sharaf leh ugu shaqeeyaan biliisku meesha uu joogo dawladdii baa joogta xaqiiq waay wuxuu soo hooyo halkaas ka soo dawladdii buu ku matalaya Saadaq Siciid Nuur Galmudug TV gaalkacyo